ururka samafalka Anfac Foundation ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay 550 qoys oo ku dhaqan xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka Booramo kuwaas oo iskugu jira danyar iyo agoon. Deeqdan ayaa ka timid Farax Axmed Xasan oo ku nool wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London iyadoo deeqdan u soo wakiilatay ururka samafalka Anfac Foundation. halkan waa hotel Maanagassos waa goobtii loo asteeyay in lagu qaybiyo deeqda raashinka hadalla kala duwan oo goobtaasi laga soo jeediyay ugu horeyn waxa goobtaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka samafalka Anfac Foundation samafalahinda Cabdoshaare waxayna ka warbixisay anigoo ka hadlaya afka magaca ururka samafalka Anfac Foundation waxaan joognaa maanta Allah naxariistay hotelka ka hadhay Saciido Goojo barxadiisii hotelkaasi maanta ma aha waxaan ku bixinaa maalin kasta waan ku bixinaa waxaana naloo siiyay si tabarucaada waxaana noo sheegtay inanteeda bilan inaan markasta oo hawl leenahay ay waalidiinteedu bixisaan si tabaruca aan ugu bixino oo dadka masaakiinta loogu qaybiyo waxaan leenahay intii ay daaradani ka hadhay Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro jannada firdawsana Allah ka waraabiyo waxaan maanta u qaybinaynaa 550 qoys oo kamid ah dadka danyarta iyo agoonta isku jira ee ku nool gobolka Awdal lacagta raashinkaasi waxaan noo soo diray inantaan habartoonahay Farax Axmed Xasan oo ay dhashay Siraad Kanaale waxay ka soo urursay dad asxaabteeda waxaan leenahay habo jasaakallahu khayr jasaa ila miisaanka xasanaadka ugu daro wadarka saamaanta dadka loo qeybiyay indhaha ka saar baahiyahooga baahiduna intan maahina baahida gobolka Taalaabay ka badan tahay intan iyo in ka badan bahaba dadaalka lagaga fadhiya intan waan ka gudoonay Ilaahay miisaanka xasanaadka kugu darabaalena adiga iyo intaad ka soo urursay geestooda hadalka waxa iska daba qaatay Muxyidiin Raad Shabeel xogayaha ururka samafalka Anfac Foundation iyo Idil Cabdirashiid Xuseen oo kamid ah saraakiisha ugu sareeya ururka Anfac Foundation halkan waxaan uga mahadnaqayaa walaalo Farax Axmed Xasan oo maanta deeqdan soo gaarsiisay dad danyara oo ay ka soo ururisay inay asxaabteeda waxaan leenahay walaasha adiga iyo intii aad ka soo qaaday Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro kaliya wixii aad bixisatay iyo intaad u dadaasho madaaqara ku leedahay walaal waxaan leenahay Farax waad ku mahadsantahay annagana waajibaadkayga ka urur ahaan waxa weeyaan wixii aad soo gaarsiisaan inaan ugu qaybino sida ugu cadaaladsan oo dadku sida u kala liitaan aanu soo ururino marka waxaan leenahay walaashay markan iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba insha Allah waanu kaaga fadhinaa adiga iyo intaad ka soo qaadeen Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waa 10kii dambe ee Ramadaan intan iyo in ka badanna waanu idin haynaa mar wal oo khayr ku jiraba nagala qayb qaata waanu idin soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhawaad Ilaahay baa mahad leh marka hore iskuulkeen keenay barxadan maanta ku qaybinayno iyadoo lagu jiro 10kii dambe ee Ramadaan waxaan deeqda noo soo wakiilatay walaal degan London waxaa ku jira aan raashinka maanta u qaybinaynaa dad laga soo duubay maalin hore media oo ka aragnay oo dawga cadegan باقويسيسكا maanta raashinkan siinina iyaguna kamida waxaan leenahay cid kasto oo la soo baxdayna jasaakallahu khayr Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waxaan leeyahay ummadda masaakiinta walaalihiinna mar walba hala garab istaago halaga warhayo dhankooga waxa ka mahadnaqay isla mar ahaantaana duco halkaas uga soo jeediyay cidii deeqdan soo gaarsiisay danyartii agoontii la gaarsiiyay deeqda raashinka wixii noo soo dirtay soo gaaray Allah inaga jirsiiyay Allah naga sharafaa barkaysan oo nisbatayn maalintii hore ka hadlay ururka Sheekh Cismaan Anfac ay noo soo direen waan u mahad celinay mahad iyo guulba korkooga ha ahaato sida ay uga soo jawaabeen degdega ayaan ugu mahad celinaynaa salaan korkooga ha ahaato anagoo maalintii hore cabanay oo cabashadiina la noogu yimiday mahadiya ka gaadho inta soo dirtay iyo inta noo joogtay aan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa ururka Anfac walaalahaygii macaanaa iyo dadweynaha noo soo deeqda noo soo diraba mahad baan ugu qabnaa waanu ka gudoonay ururka Anfac Ilaahay uu noogu soo dhiibay waanu ka gudoonay Ilaahay xasanaadka miisaanka ha ugu daro dadka noo soorayna wuu mahadsan yahay waxaan mahad celinaynaa dadweynaha ka qayb qaatay gargaarka hay'adda Islaamka waxa weeyaan waan mahadnaqaynaa 9% inuu Ilaahay iyagana meel khayr qabta wax khayr qabta Ilaahay siiyo oo waxa ka sii fiican oo ummadda Islaamka ay mar walba ku garab galaan ay ku gargaaraan ayaan Ilaahay uga rajaynaynaa waana mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si kastaba ahaatee waa markii labaad ee deeq noocan ah ay gaarsiiyaan isla bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro